Assalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daadaa. Maanta waxaan ka hadlaynaa taariikhda akteerka reer Mareykan ee Morgan Freeman. Morgan Freeman wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka taariikhdu markay ahayd 1937 waqtigaasi oo ku beegnaa waqtigii midabta kor lagu hayay dadka madoobi uu aad u xooganaa, iyadoo ay ugu wacan tahay dhibaatadan iyo cadaadiska midabta koorka. Qoyskiisii waxay go'aansadeen inay u guuraan meel kale si ay u helaan nolol ka fiican ta waqtiga ka jirtay dalkooda. Morgan wuxuu jeclaa inuu noqdo aktar, lacagtiisa iyo waqtigiisa inta ugu badanna wuxuu ku bixin jiray si uu u daawado aflaamta. Marar badan waxa uu isku dayay inuu noqdo aktar, balse kuma guuleysan. Waqti aad u dheer kadibna wuxuu is arkay isagoo duuliye ama pilot ka ah diyaaradaha militariga. Waqti kadib, Morgan wuxuu xaqiiqsaday in mihnada uu dhab ahaan u jecel yahay ay tahay aktarnimada. Waxaanu go'aansaday inuu daba socdo oo aanu ka harin sidii uu aktar u noqon lahaa. Morgan da'diisii waxay gaartay 45 jir, isagoon wax guul weyn ah gaarin. Laakiin muu niyad jabin, wuxuu sii wado isku daygiiba. Wuxuu guuleystay markay da'diisu gaartay 50 jir, markaasuu matalay filimkiisii ugu horreeyay oo la dhihi jiray Street Smart. Markaas kadib wuxuu matalay filimo kale oo caan ah oo ay ka mid yihiin Lucy, Wanted, The Sum of All Fears iyo qaar kaloo badan. Morgan markay da'diisu noqotay 67 jir, wuxuu ku guuleystay biladda aflaamta kadib jilidii uu ku soo bandhigay filimkii la magac baxay $1 Million Baby.